saddexda bisha May waa maalinta xorriyadda warbaahinta oo adduunka oo dhan laga xuso waxaana inta badan munaasabadaha xuska maalintan lagu lafaguraa sidii loo yareyn lahaa tacadiyada ka dhanka ah wariyaasha Somaliland oo ka mid ah meelaha ay sida weyn uga shaqeyso warbaahinta madaxa bannaan ayaa sanadkan laga xusay maalinta xorriyadda saxaafadda iyadoo ay ka soo qayb galeen xuska sanadkan xubno ka tirsan garsoorka Somaliland xeer ilaalinta ururada xuquuqul insaanka iyo wariyaasha kala duwan ee ka howlgala magaalada Hargeysa waxaana xuska sanadkan laga soo saaray baaq ka kooban 5 qodob oo loo arkay in ay yareyn karaan tacadiyada ka dhanka ah warbaahinta Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto waa gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier waxa uu ka warbixinayaa baaqa sanadkan laga soo saaray xuska maalinta saxaafadda adduunka kulankan maanta ama baaqa maanta ururka Soldier uu soo saaray wuxuu kaga duwayay baaqyadii hore ee soo saari jirnay runtii waxa u dhamaan maanta stakeholders ama daneeyayaasha saxaafadda ama dadka ay arrimaha saxaafaddu khuseeyaan haday garsoorkii noqon lahayd haday xeer ilaalintii noqon lahayd haday suxufiyiintii noqon lahayd iyo haday xuquuqul insaankii noqon lahaydba intaas oo wada jira ayaa maanta baaqan maadaama muddo 2 cisho ah u fadhiyeen sidii ay baaqa u soo saareen maanta u weyneyn lahaayeen soo saaray runtii waxaana la isla gartay runtii baaqaasi maanta in awoodda lagu ilaaliyo saxaafadda maadaama tiirka afraad ee qaranka tahay cadaaladda in lagu ilaaliyo iyadana awoodda ay leedahay baahda cadaaladda iyo in sharcigu sareeyo saddexda arrimood in lagu ilaaliyo ayaa hal ku dhig looga dhigtay hay'adahaasi ka kooban sidoo kale waxa isla qaatay mabaadi guud oo runtii 5 qodob ka kooban oo loogu talagalay in sanadkan iyadana lagu shaqeeyo hadii la yiraahdo waxa marka koowaad la isla qaatay inuu sharcigu sareeyo maadaama xukuumadda Somaliland iyo hoggaanka imika talada ayaa runtii ay ka go'an tahay hal ku dhig ku oleynay waha in sharcigu sareeyo in saxaafadda runtii xuquuqdooda iyo sharciyada ay haystaan runtii lagula ixtiraamo oo lagu dhaqmo oo xukuumaddu ay tixgeliso oo sharcigu uu sareeyo oo aanay awood gacanta ku qaadan baa runtii baaqaasi mabaadiida la isla qaatay kamid aha in la tixgeliyo ra'yi dhiibashada oo dastuurkeena damaanad qaaday ba iyadana waxyaabaha la isla qaatay in badan ay cabashooyin ka soo baxayaan waxa kale oo la isla qaatay in la tixgeliyo madax banaanida saxaafadda maadaama oo tiirka afraad ee qaranka ay tahay saxaafaddu madax banaanidoodana dastuurku damaanad qaaday waxa la isla qaatay in madax banaanida saxaafadda runtii la dhiirigeliyo oo loo hawlgalo sidii ay looga midho dhalin lahaa waxa kale oo la isla qaatay qodobka afraad in la tixgeliyo madax banaanida garsoorka iyo xuquuqda uu qofku u leeyahay inuu maxkamad iska hor difaaci karo waxa dhacda in maalin walba ay dhacayso in dadka la xiro ama saxaafadda oo kale la xiro iyadoo aan helin fursadaas ay maxkamadda horteeda iska difaacaan marka taana in bulshada iyo saxaafaddu runtii ay xor u ahaato ay iska difaaci karaan sharciga hortiisa ba la isla qaatay ugu dambeyntiina waxa la isla qaatay in la dhowro oo lagu shaqeeyo runtii xeerarka heer qaran heer gobol iyo kuwa caalamiga ah ee khuseeya arrimaha saxaafadda inkasta oo dhawaan uu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Somaliland Maxamed Muuse Abees in aan wariye dambe loo xiri doonin xirfadiisa warbaahineed hase ahaatee ururada u dooda xuquuqda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka ayaa sheegaya in Somaliland uu ka jiro hoos u dhac dhanka xorriyadda warbaahinta ah marka la barbar dhigo sanadihii hore Guuleed Axmed Jaamac Dafac waa gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Somaliland sanadkani lama koosan wanaag fiican oo saxaafaddu helayso dhibaatooyin iyo caqabado fara badan oo hor leh oo soo food saaray ayuu ka yimid waxay taasi fiirgaraynaysaa ururka adduunka u qaabisan adduunka dhan eega saxaafaddu xorriyadda ku nooshay siduu yahay Somaliland marka laga soo bilaabo 2008 ilaa maanta mar walba hoos buu sii dhacayay xorriyadda saxaafadda Somaliland ay haysato sanadkii hore 4 buu ku bilaabo wadamada ugu wanaagsan buu ku jiray Afrika maanta 5 buu maraya meesha ugu liidatana waa 7 marka dad eegtid xaddiga u dhaxeeyo waxa weeye hal un baa u dhaxaysa wadamada adduunka ugu liita xorriyadda saxaafadda iyo Somaliland hoos u dhac weyn baa ku jira taana waxa keenaya xaddiga maalin walba suxufiyiinta la xirayo ama saacad hal la xiro ama maalin hal xiro laba hal xiro uu badanaya oo frequent taasi waxay muujinaysaa in qofka mas'uulka ee dawladdu ka caraysay ay u sahlan tahay inuu qofka suxufiga xiro haddii suxufigu og yahay marka inay sahlan tahay in la xidhaana wuu ka baqayaa wuu ka maagayaa inuu qoro ama yiraahdo waxyaabaha dhibaato ku keeni kara qofna ma rabo in noloshiisa iyo mustaqbalkiisa dib loo geysto oo la xidho taasina waxay markaa meesha ka saaraysaa in saxaafaddu waxyaabaha bulshada danta u leh ka hadli karto uu kamid yahay maamul wanaag uu kamid yahay musuqmaasuqa uu kamid yahay barnaamijyada horumarineed sida loo maamulo sida loo qaybiyo waxyaabaha u muuqan kara in dawladda laga cariisiyo dhan kama hadlaya marka saameyntu waxay ku dhacaysaa ugu dambeynta dadka shacabka ah dambi dhacay ama dambi soo socday uu ka hortago uu soo qabtay
xuska sanadkan ee maalinta saxaafadda adduunka Somaliland waxa uu ku soo beegmayaa xilli 4 bilood ee ugu horeysay ee xukuumadda hadda ka talisa Somaliland lagu xiray Somaliland 13 wariye walow intooda badan xabsiga markiiba laga sii daayay. Khalid Fodadi, Goobjoog, Hargeysa.